السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان ولا لها الصومالية دو ميل كستو الدنيا أتك جوجتان وايد وذا السلامي waxaan rabaa walaalayaal inaan wax yar ka hadlo arinta Soomaaliya waa wadankeeni waan jecelahay xaqiiqatan anaga dibadda ayaan muddo dheer ku noolahay waa u hilowsanahay wadankayaga inaan nimaadno inuu meel nabad noo noqdo laakiin nabad uu noqon la yahay miyaa ka shaqeeyay marka inuu Soomaaliya ay nabad noqon weydo waxaan isleeyahay ummada ayaa u dhafray u soo jeeday u tashaday inay Soomaaliya ay noqon weydo midnimadeeda iyo waxdadeedu ay soo noqon weydo in dadkan la kala qoqobo in dadkan waxyaabo xawaajiso u dhaxeeya la kala dhaxdhigo in magacyo loo sameeyo in dawladda loo sameeyo in madaxweynayaal 10 loo sameeyo in magacyo aynan ka gudbi karin loo sameeyo in aan waligeyn ku jirno sirkal iyo meel wareega oo aynan dhaafi karin waxaan isleeyahay walaalayaal ana wadanka waan ka maqanahay inta ka maqan wadanka oo dhan waxay sugayaan wadankii Soomaaliya oo nabad ah alla yaa maalin uun idin gaarsiiyay ayaan leenahay wadanka waxa adduunka ku nool gabdhihii Soomaaliyeed oo single mother ah oo caruurtii looga tagay oo meel ay ku soo celiyaan iyo meel ay ku hayaan leh boqolaal Soomaaliyeed baa daafaha adduunka ku wada rafaadsan qaar baa xabsiyada adduunka ka wada buuxa qaar baa badaha ku wada dhamaanaya qaar baa maartay dulinimo iyo magac xumo ay meel walba ku haysataa oo qaxooti ku ah intaas waxay sugayaan wadanka oo nabad waxaan isleeyahay wadanku wuxuu u socdaa wax badan oo fiican oo na farxad galiya mar walba na soo gaara waa dhismaya hawadii wadanka ayaa la soo celiyay baan maqlaynaa badii wadanka la soo celiyay baan maqlaynaa birrigii wadanka la soo celiyay baan maqlaynaa waxyaabo badan oo guul ah baa laga gaaray tiyaatarkii iyo ummadaha meelihii u dhaxeeyay baa iska wax u qabsan lagu dhisayaa maktabad wadaniga maktabadii wadanka baa iska wax u qabsan lagu dhisayaa waxyaabo badan baa ka socda wadanka ganacsi iyo business iyo kala socod badan way ka jiraan waxaan isleeyahay marka in badan oo arintaas aynan farxad gelinaynin way jiraan oo iyagu ka shaqeynaya mar walba waxaan oran lahaa marka waxyaabaha dhibaatooyinka ugu waaweyn anigu waxaan isleeyahay gobolada iyo qaabka loo sameeyay iyo magacyadan waaweyn ee la samaystay ee dadka iska horkeenaya weeye waana oran lahaa magaca waxa ku filan ninka in la yiraahdo gudoomiyaha gobolka waa adduunku sida uu dhisay yahay wadankan hadda aan ku noolahay Mareykanka wadogtiin waa 50 gobol taqriiban baa la yiraahdaa hal gobol oo kamida gobolka Texas ama hal gobol oo kamida baa wuxuu ka wan yahay Soomaaliya oo dhan ayuu ka wan yahay ومع ذلك gobolada inta leega Soomaaliya ka weyn ninka haysta lama yiraahdo madaxweyne waxa weeye gudoomiye gobol weeyaan marka magacyadan anu waxa oran lahaa ninkii meel ka baxa iyo ninkii yaan magac ka dambeeyo oo madaxweyneba la sameeynin dadkuna ha noqdaan goboladu nin walba gudoomiye ku filan wadanka Soomaaliyana wadannimadiisii iyo sumcadiisii iyo midnimadiisii ha loo wada shaqeeyo waxaan leeyahay intaas ay nagu filan waan ogahay dad badan inay laga yaabo u arkaan inuu maartay ilaa wax laga shaqeeyo oo qabaliyada iyo maskaxda inaga qabsatay ama qalbiga inooga jirta baa jira laakiin waxaan oran lahaa qof walba Soomaali oo mid ah oo magacaad ku leedahay oo maartay muuqaal aad ku leedahay oo aad ku leedahay sharaf iyo karaamo ku leedahay ayaa ka badan oo ku deeqi lahayd midaana kulligeen aan garab istaagno waxaan isleeyahay walaalaha mucaaradka ah waxa oran lahaa berri bay idin soo maraysaa waana farxi lahaydeen hadda idinka naftiina wadan jira aad qabsataan oo madaxad ka noqotaan taas dantu idinku jirtaa wadan burbursan ama wadan sumcadiisu dhimatay faa'iido idin yeelan maayo laakiin waxa idin fiican san aanu dhihi lahaa inta ay shaqada aad joogtaan inaad ummadda wax la qabataan oo magac fiican iyo dhikri fiican aad uga tagtaan dhawaanna hadda rabtaan meel wax ka bilaaban yahay oo jirta aad timaadaan baan oran lahaa qof walba Soomaaliyeed ku darso wanaaga ka shaqee burburka Soomaaliyana ha ka shaqeynin waxa la yiraahdo Soomaaliya jiritaankeeda iyo burburinteedana dhaxdhaxaad in laga noqdo ma qof kasta oo culimada iyo indheergaradka iyo cuqaashana waan oran lahaa arrinkaas isaga meel ha loogu wada istaago mar walba dawlad
soomaaliya u jirta oo magac leh oo maqaam leh oo sharaf leh oo adduunka iyo karaamadiisii soo celin oo wax fiican inay ka shaqaynaysa aan u jeedno inaan taageerno oon garab istaagnaayey waajib bay nagu tahay inaan dhexdhexaad ka noqonno oon kala doordoorannana mae waajib bay nagu tahay waad mahadsantihiin wajazaakum allahu khayr asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu